haddii aan la yiraahdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale cadeeyay inay hawl ku deesho mudan ay tahay oo wax loo dhigaa aanay jirin talaabada iyo waliba dadaalada ay xukuumadda deegaanku dib ugu saxayso maskaxda iyo aragtida dhalinyaradii hadda ka hor ururada nabadiidku ay maskaxda ka khaldeen waqti xaadirkana dadkooga dhinaca ka raacay wiilasha shalay nala soo tusay ee dhowrka sano duurka ku jiray ee ayagoo raameystay oo maxaankooda injirtu ku baxday ee intaasoo nolol xumaa ay u sii dheertahay dambiga ay galayaan iyo walaalkooda ay dilayaan iyo maanta siday u nool yihiin nolol qurxoon nadiif ah cibaadadeeda wadata mustaqbal leh hantiilayaal yay noqdeenba maanta oo waxaba sanadka aakhirkiisa waa xisaabtamayaan maxaa faa'iido soo gaarooba ka hadlayaan waa hadda ninkii shalay muxuu ahay duurka muxuu ahay nolosha adag ee qaabka daran ee muxuu ahay saas ku jiray maanta ninka ku xisaabtamayo sanadka aakhirkiisa maxaa ii soo haray markii qarashka la iga jaray shaqadii aan qabtay ee intaana mishaar qaadanaya ee qoyskiisa iyo reerkiisa biil siisanaya asoo mishaar qaadanaya haddana sanadka aakhirkiisa dhahayo maxaa ii soo harayo muxuu looga shaqeey inta hanti lama u imaan hanti kale ma ay soo noqon muxuu ahay markii ay ka imaanayeen oo markii ka imaanayeen hanti lama ay imaan ya xirfadii iyo suuqii iyo hantidii iyo wixii dhammaan la isugu daray xirfadaa la baray shaqadan qabaa la yiri shaqadii markii uu qabtana hawsha uu qabtay ayaa la yiri iskuulaadka kuraas u samee dawladda ka iibsanayso xafiisyada dawladda maxaan ku raay miisas u samee iyo xafiisyo dawladda ka iibsanayso isbitaalka maxaan ku yiraahdaa sariiro u samee dawladda ka iibsanayso shacabka muxuu ahay furniture-ka qofkii rabo waa ha ka iibsado kadibna muxuu ahay intaas uu shaqada hayana mishaar qaado oo ka qaado hawshaada kadibna wixii faa'iido ku soo har sanadka aakhirkiisa ma wax lagu doorsadaa jira